raxmadii ilaah iyo dadyo waatan rabadaane raxmadii ilaah iyo dadyo waatan rabadaane rajab waa dhammaato shabcaan reesto taban baa waqtiyada isrixo iyadoo roraysay timide bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaan idinka warrami doonaa hal arrin oo haddii aad ku dhaqanto noloshaada wax weyn iska bedelayo arrinkan maanta aan idiin sheegi doono dhammaan adduunyada dadka wax noqday ama dadka guul uun adduunka wax ka gaadhay sirta ka dambaysa inay guusha gaadhaan waa arrinkan aan soo wado oo ay ku dhaqmeen oo ay fuliyeen sirtaasi waxaa magaceeda loo yaqaanaa waa the deadline ama waa waqtiga kama dambaysta duniyadan aynu ku noolahay wax kastoo adduunka yaallay waxa uu leeyahay waqti kama dambaysa matalan tusaale ahaan maanta waxa wax lagu bartaa oo jaamacadda ama dugsiga wax lagu dhigtaa waxa weeyaan waxa uu qofku sugaa uun waa waqtiga ay ka dhammaanayso haddii matalan tusaale ahaan waxaad ka soo qaadaa maanta jaamacadda ama iskuulka oo kale haddii aanu lahayn waqti ama sanad oo dhammaado oo uu waqtigeegu furan yahay uun cid wax dhigataay ma jirteen qof walba waxa niyadiisa ku jirta maalin bay ka dhammaan marka wax la daawanayo waa la mid maanta haddaad filim daawanayso ama ciyaar daawanayso waxa uu qofku sugayaa uu ku daawanayay inuu leeyahay waqti uu dhammaanayo laakiin waxaad ka soo qaadaa matalan qof maanta ciyaar daawanaya ciyaartaasina ay tahay unlimited mid bilaa waqtiya ayaa daawan lahaa cidina ma daawateen haddii imika tusaale aynu soo qaadano haddii aad rabto maanta inaad alifto aad qorto buug haddii waxa laga yaabaa maalinka ama labada maalimood ee ugu horeeya inaad u xamaasadooto laakiin maadaama waqtigu uu ku xadidnayn maalinka dambe maalinka saddexaad iyo maalinka afraad waad ka caajisi doontaa weligaana buugga ma soo saaraysa laakiin dhinaca kale waxaad ka soo qaadaa haddii buuggaasi aad waqti kama dambaysa u qabato inaad ku dhammayso 3 maalimood oo keliya maalinka ugu horeysa wax fiican baad qori maalinka labaad waad ka sii badani maalinka saddexaad maadaama waqtiga ka dhow yahay dhammaantii waad wada qoraysaa sidaas ayayna hawshaasi kaaga dhammaanaysaa marka haddii aad rabto noloshan adduunyada inaad ku guulaysato shaqooyinkaaga iyo timetable-kaaga iyo jadwalkaaga haddii aad rabto inaad guul weyn ka soo hoyso waa inaad shaqo walba ku taalo aad u samayso waqti kama dambaysa oo ay kaaga dhammaato sida awgeed xataa ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadada uu inagu waajibiyey waxay leedahay waqti kama dambaysa matalan muslimiinta waxaa ku waajiba in ay soomaan sanadkii hal bil bishaasi waa loo cayimay waa bisha ramadaan haddii ay ku dhaafto waqtigeegii kama dambaystii uu kaa tago kuma soo laabanayso waa inaad soo qallayso xajku waa la mid waxa uu leeyahay waqti kama dambaysa matalan hadda ramadaan ma ku jirnaa haddii aan xaramka aado oo aan israado xajkii soo gudo acmaashoo dhan haddii aan guto igama ansaxayso sababtu waa maxay dee waqti buu leeyahay kama dambaysa waqtigiisi haddii uu iiga tago xajkii ma gudan karayo salaadii waa la mid salaada duhur waqti bay leedahay salaada casar waqti bay leedahay salaada maqrib waqti bay leedahay dhammaan siduu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta salaadu waa kitaab mawquuta oo waqtiyeysan oo jadwalaysan haddii ay ka tagto salaada waxa lagu xisaabinayaa inay ku dhaaftay sidaa awgeed xataa nolosheenan aynu nool lahay adduunyadu waxa ay leedahay waqti kama dambaysa oo dhammaanayso siduu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala markii ajashu timaado laa yastaqdimuuna saacatan walaa yastaakhiruun qofka markii ajashiisu timaado xataa hal saac looguma darayo marka noloshan aynu adduunyada nool lahay min maalinkaynu dhalannay ilaa maalinka aynu ka dhimanaynay waa waqti kooban waana waqti xadidan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu talagalay waqtigeenni marka ay dhammaato nolosheennina way soo gebagaboonaysaa waqti dheeraadana ma lihin waxaan ku kalsoonahay maanta haddii aad ku dhaqanto halka arrin oo keliya in noloshaada wax weyn iyo farqi weyn aad dareemi doonto shaqooyin badan oo ku yaalay oo aad dib u dhiganaysana ay ka dhammaan doonaan oo aad ka nasan doonto marka waxaa idinla talinayaa jadwalkii aynu soo dejinnay ee loo yaqaanay jadwalka shaqada in aad ku laabato kadibna shaqooyinka ku yaala aad u samayso waqti kama dambaysa oo aad shaqada iskaga dhamayso waxa anigu ra'yi ahaan aan ku soo jeedinayaa oo ka caawin kara sticker note-kan yar oo aad u isticmaali karto in mar walba aad ku xasuusato shaqooyinkaaga waqtiga kama dambaysta ay leeyihiin marka warqadan oo kale ayaad goosanaysaa waxa aad ku dhajisanaysaa sariirtaada ama buugaaga ama meel mar walba aad ka arki karto waqtiga ay shaqadu ay ka dhamaanaysana waad ku diiwaan gashanaysaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin fiidiyogan laftiisu waxa uu lahaa waqti kama dambaysa oo dhammaanayo dhammaantiin waa salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu